isagoo khudbadii ka baxay sheekhu oo intaa hadlaayay ayaynu haddana dib u soo celinay ilaahay miisaanka xasanaadka ah ugu daro dembigiisa iyo dembiga waalidkiina allah ku dhaafo su-aasha koobaad waxay markaasi leedahay waa maxay sheekh waxyaabaha iga nusqaaminaya soonka sidaasi la mida biyo haddii aan cabo anigoo islowsan soonkii ma iga nusqaamaya الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قفك يسوي لو سنة دوحنا أما وحبه صون كيسي وحبنا قانو معي نبينا عليه الصلاة والسلام وحشاقي قفك النوع عاسى إلهي باقوديي أو ورابيي marka wax soonkiisa u dhameeyay taasi ma jirto soonka wax u dhimeeya dambi oo dhan xallo wixii dambi ahaa haday xan tahay haday arag eegma xaraana tahay haday tahay ay haday tahay been la sheego wax aliyaalo wixii xaraanta ah xoolo xaraan qof marka xoog looga qaatay dhac iyo dulmi wax aliyaalo wixii macaasi ah de qofka soonkiisi ama way macna tirayaanba oo waxaan yaani ajar iyo abaal marin laga helin buu noqonaya ama wax marka ajarkiisu uu nusqaamay ayuu noqonay waxa kale oo muhiim ay tahay in hadal lagu ilaaliyo soonka waxyaalihii aan xaraanta baahin laakiin laqwiga ah bila faa'iidada ah iyagana waa in soonka laga ilaaliyo dadka qaar kood waxaad arkaysaa marka shax la kala baxay waa bad ficaysa marka meelahan iyo si marta galabti konton jirkii iyo 60 jirkii oo halka wada foorara oo dhagaxa yar godadka la eeganaya oo waqtigoodii halka ku abaaday baad arkaysa markaas hadii xataa la hadlana aanay yaani waxa weey waaba qoslayaan oo qof quro kacay ma arkaysi oo Allah hadlaysa waxa warnimo iyo hoosan isu dhaam quraan akhri aayado quraan akhris wacdi dhageysta masaajidadii khayr baa ka socda waxaan baa u muuqdo oo shaytaankii uu u qurxiyay waxyaalahaasina waxyaalaha marka qofka runtii soonkiisii ajrigii uu ka heli lahaa iyo ujeedooyinkii bishan ramadaan ee uu gaari lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tala galay waxyaalaha qofka seejinaya weeyi in waxa soo dhan marka la iska ilaaliyo inta aanad cibaado ku jirin waa inaad waxtar adduunyo ku maqanta wixii waxtar adduunyo aad dukaankaaga iibinaysa aad taas ku mashquulsan tahay taasi waa khayr waa wanaag laakiin shaxbaan ciyaaraya ama kubad baan soo daawanaya oo waxyaalaha marka runtii tusinaya dadku inaanay fahamsanayn ba noloshu waxay tahay waqtigan ay islaafinayaan noloshoodii yahay ba dadku inaanay dareensanayn ay arintaasi sheegaysa wallahu almusta'an jazallahu shay khayr aljazaa su'aashan kalena waxay oranaysaa ruuxa isagoo soomaya haddana salaadihii aan tukanaynin sheekh maxaad kula talin lahayd ama hurdo ay dhaafinayso ama salaadaha qaar tukanaya qaar ka tagaya xukunkiisuna muxuu noqonayaa ninka noocaasihi waxaynu ku matali karnaa qof ganacsi furtay oo tukaan raasamaal dhigtay faa'iido raadinaya raasamaalkiina cunaya qof raasamaalkii cunaya haddana doonaya inuu faa'iido u xaadiro haddaanad salaada tukanaynin ajarka aad soonka ka helaysaa muxuu noqonay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxa ugu horeeyo qofka la weydiinaya waa salaadu haddaanay hagaagin waxba uma hagaagayaan qofka hadday salaadiisu hagaagtana waxba kama xumaanayaan buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله هذي صلاة دوها جاك تقف وحبك حمان ماين هذي صلاة دوك حماتنا وحبوها جاك ماين بقول النبي عليه الصلاة والسلام مركارنتي وقف مركا قريب بلا أساسة لسه أو كلا أيون نقنية أما مركا وحوي فائدة بلا رأس ماله رادينية تتصنع وح مركا حصل يورنعية معها soonka ka tagmaliin laakiin salaadana la kaalay baynu leenahay oo salaadii iyada ka horeysa soonka yaan laga waayin wallahu a'lam jazallahu shay khayr aljazaa
su-aashanina waxay odhanaysaa sheekh waxaan markaasi helay xoolo mag ah ayaan ruux ka qaatay mid ka mida ayaa laygu qabsaday ciddii lahaydna ay iga qaadatay iyada oo neef markaasi dhashay qofkii ma dib waxaan uga qaadanayaa halkii neef mise labadii layga qaaday iyada iyo tii ay dhashay ayaan ka wada qaadi كل سؤال شاقف وتلفون قاري إنه يسوي ديابة من مودي وأنا قصدي قاري يقول صوت دراي وأنا عنده وجه شوابي لكن ما لا فاهم بوبها لكن سؤال شيء أنا مركز شوابي كل يوم حسوس تاوسي قارا أنا وجه شوابي مكتي عاد لهيد مركي لوسيي ده ترى هل كم إذا هله عاد قاعدتين لو قبصدي إلا يشيء أي عداتين عداك وقبصتي أي لا ضحي iyadiyo wixii ay dhashayba isaga leh mar haday cadaatay in qofkaasi uu leeyahay kan ku siiye mag ahaan ku siiyeyna aanu lahayn hasha iyo wixii ay dhashayba de ka laga soo dhacay marka hore ama laga soo xaday ama ay baadidaba ka ahayd ay baadi ahaanta looga ayaa yeelanay saasay ku tagaysa adiga maxaa markaa ku dhiman de hal baa ka dhiman ma oranaysid هاي هالشوي لما أنا تيوي نشيء ويدو لبقى ما أنت اللي يقاضي وعملنا يتن لما أنا تأديه كومي لما أنا أديه هالشادي وين مقنيد مركو ربع هالشادي ما بعد قاضم بقى هالشان لقودي بي تادي ما بي أهين مركا ده كل كي لما أنا تيجي وحنا نشيء عدي رهايدون بقول نشيء أديه تادي ولي ودينه وين مقنتاي دين لم يترنتا دين تو ما يترنتا مركا هالشادي ودين مركا ما ترميسو وحبداس 10 سنوod hadii laga la maqnaado ama 20 sanadood laga la maqnaado ma oranaysid hadaad hore iigu keeni lahay 10 daood bay ay dhali lahayd ma oranayso deynku ma tarmo xabadii un baad leedahay wallahu a'lam jazallahu shay khayr aljazaa su'aashanina waxay oranaysaa dawada lagu cadaydo soonka wax ma yeelaysaa sheekh barakallahu fiik soonka waxa wax yeelaya wixii aan candhuufta ahayn inaad hunguriga geliso aad liqdo marka hadii dawadii wax kamid ah candhuufta uu raacayo de mamnuuc bay noqonaysaa baashan lagu cadaynayo hadii wax kamid ah wax ku milmay ba noqdo candhuuftii wax kamid ah haduu candhuuftii raacayo oo liqayso mamnuuc bay noqonaysaa soonkiina way jabinaysaa laakiin hadii aan candhuuftii waxba raacayn oo markeeda horeba de aanay wax markaa ku milmay ahayn oo taasi cadaato ama wixii ku milmay iyo candhuuftii aad isla wada tufayso iska nadiifinayso oo markaad iska nadiifiso kadib aad markaa wixii candhuufeeda liqayso candhuuf kaliya iyadoo aad liqayso waxba markaa soonkii u dhimi mayso wallahu a'lam jazallahu shay khayr aljazaa su'aashanina waxay oranaysaa sheekh anigoo isilowsan oo jinaabo qabay hadii aan tukado salaadaydii ma ii ansaxaysaa mise inaan dib ugu soo celiyo noqonaysaa de qof bilaa weyse ku tukadayo kalun baad la mid oo in sogay kaana xukunkiisu muxuu noqonayaa shaki baa taayid kaga jira kii janaabo qabay ee islaaway tukaday waa nin tahaaro laga doonayo isagoo taahirsan wax weey tukaday isagoo taahirinin marka salaadii asixi mayso ajar waad ka helaysaa bay yiraahdeen culimadu iyo de khayr baad samayso adigu wanaag bay ka ahay ajar waad heli laakiin waajibki kaamuu dhicin waxa la doonayaa markaad magarato inaad salaadii soo celiso hadii waqtigeedii joogo hadii waqtigeedii baxayna aad qallayso wallahu a'lam jazallahu shay khayr aljazaa su'aashanina waxay oranaysaa sheekh ninkii gabadh hadii uu laba dalqadood uu mar israaciyo oo hal mar laba dalqadood uu wada rido mar dambana dalqad uu rido ma laba un baa la xisaabinaya mise saddexdii way ka dhayihiin su'aaluhu malaha soonkii ka durkeen qofku ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofku wuxuu siiyay saddex dalqadood qofkii xorta ah ama mar ha wada rido ama hal ha u rido ama labana mar ha israaciyo xabadna mar ha israaciye xabadna mar ha ridee dalqaduhu waa saddexdaas laakiin de waxa laga yaabaa dadku qiil raadis wax la yiraahdo yaqaana
bal hadda ku noqo bay koonaya sheekh waxba la sheegayaa bal hadda halka ku yar noqo yaani waa nin meel u cadahay meel ka madow illow inuu soo celiyo doonaya gabadhan way ka go'an tahay taas laakiin wuxuu doonayaa wadaadkii uu qoorta ugu duubi lahaa ku noqonayo kaasi aniga noqon maayo insha Allah nin saddex ku furay aniga hadduu ii yimaado saddexdii way kaaga furantay wax aan ahayn yaanu ilaa malaha toddobaad walba su'aasha waa la soo weydiiyay inta soo jeer mushkiladuna waa maxay dadkani markay ku hadlayaan waxan way la fududahay hadhow markii daatana deeyla wixii isagu wuxuu riday weeyaan in la yiraahdo khalaas way ka dhamaatay arintii way la cuslaanaysaa wuxuu doonaya inuu sharcigi ka talaabsado waad heli wadaado qiil ku bixiye waay meesida waan ku sheegay laakiin aanay shariicadii ahayn baan ku sheegay 700 sanadood 700 sanadood kadib ayaa qowlkan oranaya saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadaya oo aan baxay 700 sanadood markii nabigu sii mootana kaleey salaatu wasalaam qowl aan baxay weeyaan oo la keenay qowlka oranaya saddexda dalqadood waa hal ama laba dalqadood qofkii riday hal baa looga soo qaadaya waa qowl qarnigii 7aad yimide hadaad ka wax ku banaysanaysa aday ku jirta hal xadiis bay daliishadaan oo xadiiskaasina xadiis weligiiba jiray buu ah 700 sano ka horeeyay wuu jiray culimaduna sidaa ay u fasireen ma yifasiri jirin qowlkaasina qowl sax ma aha wax jirana ma aha qoliyaha qaar kood oo yiri baaba jira maba dhacayaba oo hadii la yiraahdo saddexdii baad ku furan tahay talaaqaasi maba dhacayo kitaabada qaar bay ku qorantay oo ibn Hazm wadaad la wada jiro qarnigii 5aad noolaaba isagu sidaa yiri kan aynu leenahay qarnigii 7aad buu yimid waa ka oranaya saddexdii hal baa laga dhigay kaasa waqtiga caan baxay laakiin ku ka horeeyay baa jiro oranaya maba dhacayaba saddexdii markaad ku furto maba furmayso waba siirooba kaasina wuu jiraay haddaba waxay noqonaysaa de weligiiba waxa imanka sheekh ahad shuyuukhna sheekh Maxamed Ali Gadle xafidahullahu ta'ala baa laga sheegay inuu yiri labadii isnacay baa kala tagay imika cid furiin kala kaxeeyaa ma jiro marka iyagu iskood isu nacaan ayuun bay kala tagaan laakiin furiin kuwa ku kala taga oo sharci kala kaxeeyaa imika maba jiraba xaqiiqadii waaqicaynu ku soconaana waa sida weey runtii waxaynu ku soconaa hadda saasuu eegya marka de wax weey qiil la waay maayo maxaa mar walba la helaya ka yiri waa masiiro marka saddex kii ku furay haddana mar labaad ku furay haddana mar saddexaad ku furay 10 jeer saddex dalqadood ku furay muxuu isagu leeyahay waa eber talaaqba ma jiro mabay furmeen sideedii bay oori u tahay marka hadii qiil raadis aad noqoto diinta inaad ka baxdaad ku siganayso oo waxaan sharci ahayn diin ka dhigato marka walaalayaal afarta madhabe umada sunnigi ay haysato afartu waxay isku raacsan yihiin si waliba hal dabala ay isugu raaceen oo aan cidina ka baydhbaydhin oo hatta qiil looga helin afarta madhab in saddexda dalqadood qofkii rida saddexduba dhacaya kii laba rida ay labaduba dhacaya marka walaalayaal yeeynaan diinta Ilaahay ku ciyaarin wax wadaad sheegay diinku noqon maayo diintana hore waa loo fasiri jiray hore waa loo fahmi jiray insha Allah ta'ala hadii ay fududaatana dadka talabatul cilmiga ah majlis khuseeyo oo mas'aladan ku saabsan iyo bal hadda waxyaalahan qiilka laga soo saaray halku salka ku hayay sida uu yahay waynu ka qaban doonaa insha Allah ta'ala hadii Ilaahay fududeeyo wallahu a'lam جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤالها قار صوير نقضوا مجلسكي شلay ku jiray ayaa iyaguna jira marka saayidadka ugu sii jilcdoon baan sheekha weydiinaya fidiyadu imise kiilo ayay sheekh noqonaysaa jazaakallahu khayran su'aasha shalayna way noogu jirtay iyo gabadhu haday sanadna xaamilo tahay sanadna ay naaska nuujinayso maxaa la gudboon inay samayso su'aal saddexaad jimcaha khadiibku isagoo khudbada ku jira faa'iidooyin ma qoran karaa ama hadallada iyo gabayada ka soo baxaya sheekhu uu sheegayo maraajicdooda oo kale ma qoran karaa oo jimcahaygii waxba yeelaysaa mise waa caadi saddexda su'aalood baynu sheekha u bandhigaynaa falyatafadal sheekhu mashkuuran wa majuura fidiyadu kulli shayna waa sheegnay horena waynu u sheegnay
ونص كيلو iyo wax la jira oo bariisa ayaa xageena lagu bixinaya nus kiilo iyo wax yar dad marka nus kiilo iyo rubuc ka dhigto ama aad kiilooba ka dhigto ka sii wanaagsan waa maalin walba intaas ayay noqonaysaa gabadhii xaamilada ahayd ama murdicada ahayd ee nuujinaysay ee soomi kari weyday ee soonka ku tacbaanaysay ama aan awoodba u lahayn qallaa lagu leeyahay tii awoodaysay laakiin ilmaha u baqaysayna qallaa lagu leeyahay iyo raashin inay markaa raaciso ay culimadu qaybo badan oo kamid ay leeyihiin raashinkana way raacinaysaa qalluhu waa laga maarmaan raashinkana qaybo culimada kamida ayaa yiri waa inay raaciso mar haddii nafteeda aanay u baqayn ay ilmaha kaliya u baqayso tii laakiin nafteeda u baqanaysay waa qof xanuunsanayo oo kale qofka xanuunsanayana qalla ayuun baa lagu lahaa haddaba haddii ay sanadna nuujinayso sanadna ay xaamilo tahay sida su-aasha lagu sheegay waxa la qalaynayaa waa markii la awoodo sanad laba sanadood ha kugu qaato saddex sanadood ha kugu qaato afar sanadood ha kugu qaato markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku suuro geliyo ee xaaladii aad ka baxdo ayuun baad qallihii la imanaysa su-aashan ugu dambeysay ee ku saabsaneyd khudbadda in qofku uu faa'iidooyinka khudbadda lagu dhex sheegayo uu qorto arrintaasi sax maaha qofku marka la khudbadaynayo in wax ku mashquulo lama ogola man massa alxasa faqad lagaa baa xadiidku ahaa qofka ciidda taabta ama quruuraxa yara dhulka taabta marka la khudbadaynayo qof laqwi la yimid buu noqonaya marka inaad wax qorqorato sax noqon mayso inaad khudbadda marka wax weeye ku jeedo oo aanad waxba kaga mashquulin baa la doonayaa wallahu a'lam جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤاشنا waxay oranaysaa sheekh lacagta dhuxusha laga helo ma ka xaji karaa oo xajku ma ka ansaxaya dhuxusha malaha sanadkii hore waa la weydiiyay malaynay masaajid kale wuxuu ahaa garan marka dad dhuxush waxyaalaha laga ganacsado bay kamid tahay waana la iibin karaa بأسيانا ملأ حيوان كم بعد كيل أنا سيلاد جبتوه دارد كتاد كان نظيفين كرا سدوات كان نظيفين قرآن شدي يحياله قرآن شدي إلا الدير الله ما أقرأ إلا الجبانة وبكسي دارن تاعي مركا هدي أنا ضرورة كان صنين وسكر أنا دواين بعد كيل أنا حي ونولا جبتوه مركي أتجويسه لكن بحوش وحياة كجناعستين البحوش جناعس جدي كي جبيو كليه ما كي حتى يكون سود جيسي كجناعسني ما كحد كرابة ده سؤال سوه سكليس marka dhuxush waxyaalaha laga ganacsanayo bay kamid tahay hadii dawladdu ay diido waa baab kale oo yaani sax ma noqonayso wax aan la ogolay dawladdu aanay ogolaad ka ganacsato laakiin haddana sideeda wixii aad uga ganacsato waxyaalihi laga ganacsanayo banaana ayuun bay kamid tahay wixii aad ka heshaana de waa kasbi xalaal ayuu noqonayaa oo ka xajii karayso wallahu a'lam جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤاشنا waxay oranaysaa sheekh waxa jira dhul dawlad ay siisay in masjid laga dhiso markii la isiri dhisa la qoday ayaa waxa laga helay meydad ama qubuurtaana lama garanayo inay muslimiin ahaayeen iyo inay gaala ahaayeen ma la faqi karaa si masjidka looga dhiso falyatafadal الشيخ dhulku hadduu dhul islaam yahay xabaalaha laga helay xabaalo muslim bay noqonayaan dhul islaam hadduu ahaa dhulku oo aanu dhul gaalo laga qabsaday ahayn de wixii ku aasan wuxuu noqonayaa dad muslimiina haddii markaa meeshu ay tahay meel iska bannaan oo aan cidi lahayn oo dadkaa lagu aasay saasay markaa ku noqonayaan waqfi xabaal ah bay noqonayaan markaa wax kale laga dhigi maayo xabaalahoodaasay ahaanayaan masaajidkana meeshii kale laga dhisayo ayaa laga dhisayaa haddii laakiin dhulku ay yahay dhul cidi leedahay oo ciddii ay ogolaatay in lagu aaso markii markaa meydku uu baaliyoobo waa la ogol yahay in dhulkii markaa laga faqo oo laga saaro oo meel kale la fihi la geeyo dhulkiina lagu intifaaco kol haddii dhulku dhul cidi leedahay oo aan la waqfin u ahaa taas way banaanaan kartaa laakiin de saynu ognahay inta badan inaga dhul ama xabaalaba loo iibiyay oo loo waqfay ayuunba wax lagu aasaa ama dhul bannaana labadaabana banaanaan mayso in xabaalnimadii laga saaro oo ama masjid laga dhigo ama guryaba laga samaysto ama wadooyin laga dhigto la ogolaan maayo wallahu a'lam
جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤاشنina waxay oranaysaa gabadhu iyadoo xayd leh quraan ma dhageysan kartaa dhageysiga loo diidi maayo iyo inay eegto toona inay eegto qalbiga ka akhrido iyadoo ku dhawaaqay oo carabka dhaqaajinay in kitaabkii inta ay soo hor qabato ay qalbiga ka akhrido loo diidi maayo inay dhageysatana loo diidi maayo laakiin taabashadii iyo akhriskii labadaas baa loo diidayaa wallahu a'lam جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤاشا ugu dambaysa aynu majliskan ku soo gabagabeynayno sheekh waxaan dilay buu yiri mas weyn oo 1 kiilo 1 mitir iyo badh ah wax ima yeelin laakiin waa masaska markaasi wax dhiba waxa jira ma ka helayaa su'aasha aan taasi raacinayo iyaduna waxay oranaysaa sheekh haddii waqtigu uu adkaado laba reer aan leeyahay aanan isku markaasi wadi kari waayo maxaa ila gudboon maskiyada abaasada iyo waxaas waa isku wada mid weeyi kuwooda markaa dhib kale in la dilo waa layna faray oo waa khayr kuwooda dadka dhibaya dhibaatada leh in la dilo ajri iyo abaalmarin baa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala lagaga helaya wadaadkii yidhi laba reer baan leeyahay oo isku wadi kari maayo dee waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kaasho arsaaqada ilaahay baa gacanta ku hay ilaahay subxaanahu wa tacaala bari dumarkaagana dee u sheego waxaad tiraahdaa waxaasaan helayaa dee intaasuu baa idin kala qaybinaya intaasuu dee wixii markaa waxa weeye aan hayo waa sidaasi haddii markaa dee ay ku adkaysan waayaan ay ku sabri waayaan xaq bay u yeelanayaan inay maxkamadda tagaan oo yidhaahdaan dee hana laga fasakho haddii ay ku adkaystaan ay ku sabraanna dee waa khayr laakiin annagu ku odhan mayno labada mid kaga takhallus kolley siduu doonaya waxaan u malaynaya waa in la yidhaahdo dee iska fududeeyo mid markaa u qoritooro mid markaa meesha weydaari sidaas taas tala ma aha waxaa lagugula talinayaa inaad ilaahay kaashato ilaahay baa ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ilaahay baa arsaaqada gacanta ku haya ha ka quusan naxariista ilaahay reerahaagana hayso talaaqu ama furiinku waxay maarta xadiidka ku soo arooray abqadul xalaali ila allahi talaaq xalaasha ilaahay ugu neceb yahay waa talaaqa iyo furiinka marka ha ku degdegin haddii weliba caruurna aad leedahay oo labada reer bay caruur ku hayaan caruurtaasina way dayacmi doontaa halkaasi markaa halis baa runtii ka iman karta labadaada reerba hayso wixii ilaahay ku soo geliyana u kala qaybi siday u kala caruur badan yihiin mid walba intaad gaadhsiin karta gaadhsii iyaguna markaa dee ha kuu sabraan haddii ay markaa adkaysan kari waayaanna waxaa u furan inay dee maxkamaddii tagaanoo fasakhaad ay markaa codsadaan